Erling Haaland ayaa dhaliyay saddexleydiisii ugu horeysay ee kubadda cagta Ingiriiska waxaana uu ku kaftamay in bartilmaameedkiisa ugu horeeya uu yahay inuu dhaafo goolashii Premier League ee aabihiisa Alfie. Haaland waa la joojin waayay kulankii soo laabashada City ee 4-2 ay kaga badisay Crystal Palace isagoo dhaliyay 3 gool 19 daqiiqo kadib markii kooxda martida ah ee 2-0 ku hogaaminaysay qaybtii nasashada. Weeraryahanka 51 milyan gini ee Norway ayaa haatan 6 gool dhaliyay afartiisii kulan ee ugu horeysay bilowga ugu wacnaa taniya markii Diego Costa uu Chelsea u dhaliyay 2014 laakiin waxa uu ku nuuxnuuxsaday in aabihiis uu weli leeyahay xuquuq sharafeed isagoo dhaliyay 18 gool oo Premier League ah 9 sano gudaheed isagoo qadka dhexe uga ciyaari jiray Nottingham Forest sanadkii 1993 ilaa 1997 iyo Leeds oo u dheeli jiray sanadkii 1997 ilaa 2000 iyo Manchester City oo uu u dheeli jiray 2000 ilaa 2003. Alfie Haaland ayaa ciyaaraha kubadda cagta ka fariistay xilli ciyaareedkii 2003 kadib markuu galay qalin jilibka ah inkastoo 4 kulan uu soo muuqday isagoo bedel ku soo galay xilli ciyaareedkii xigay balse ugu dambeyntii buu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta bishii July 2003 inkastoo qandaraaskiisii kooxda Man City uu ku ekaa 2005 Man City-na way kansashay qandaraaskiisa maadaama xaalado caafimaad awgeed uusan u dheeli karin kubadda. Alfie Haaland wuxuu 8 sano kadib ku soo laabtay kubadda cagta isagoo bishii August 2011 uu u ciyaaray kooxda ka dhisan Bern ee Rosenborg ee heerka saddexaad ee Norway. Kadib 2013 ayuu gabi ahaanba ka fariistay dheelista kubadda cagta. Waxay ku saabsan tahay inaan isku dayno inaan sii wadno waxa aan sameynayno. Waxay ku saabsan tahay hagaajin yar oo taas ayaanu sameynay oo natiijooyin baan helnay. Waxaan ku qasbanayn inaan maqalno maamulaheena. Waxay ii tahay waqti aan ku faano aniga iyo qoyskayga laakiin aabahay waxay u badan tahay inuu yiraahdo waa ka goolal badnahay Premier League aniga marka waan eryanayaa goolashiisa ayuu yiri xidiga reer Norway. Runtii waxay ahayd dareen wanaagsan in ciyaarta dhanka kale loo rogo waxaanu lahayn maskax aan isku aamino oo aan sii wadno hawsheena. Waxaanu ku dhawaanay halkaas qaybtii hore ee ciyaarta sidaas darteed waa dareen wanaagsan. Ma fududa in aad timaado koox cusub wadan cusub sidaa darteed waxay ahayd bilow wanaagsan. Pep Guardiola ayaa isku duubnay la wadaagay geesigiisii saddexleyda markii uu ka saaray meel u dhow dhamaadka wuxuuna yiri meel kasta oo uu joogo wuxuu dhaliyay goolal. Waxaan arkay body language-kiisa markii 2-0 ay maraysay ciyaarta sida uu u dhiirigeliyay asxaabtiisa. Weligiis ciyaarta kama cararo wuxuu leeyahay dareenkaas haddii uu ku jiro xerada ganaaxa ha i weydiin sida uu wax u sameynayo. Isaga sidoo kale waa nin aan isla weyneyn oo haddana cajiib ah. wuxuu la sheekaystaa nimanka akademiyada wax badan ayay la macno tahay waxaana rajaynayaa inuu ku farxi doono waqtiga aan wada joogno City. dhibka kaliya ee Haaland ayaa ahayd darbo sare oo shil ah oo uu madaxa kaga dhuftay daafaca Palace Joachim Andersen kaas oo u baahday daaweyn markii ay City wali 2-0 lagu hogaaminayay. Haaland ayaa xitaa ka badbaaday jaale tababaraha Palace Patrick Vieira ma uusan isku dayin inuu abuuro muran ku saabsan in weeraryahanka loo qaadan karo ciyaaryahan halis ah isagoo sheegay in garsooraha uu ku fiican yahay inuu xukumo.